waxay gaaladu sheegaan in 14 February ay tahay maalinta jacaylka adduunka. waxaase la yaab leh inay soo dhaweyntaas ka qayb qaadan doonaan dad muslimiin ah, Soomaali ah oo sheegaya inay jecel yihiin horumarka adduunka iyo jannada aakhiro, isla markaana aan laga karin joojiya xusitaanka aad u xusaysaan dad dhintay. weliba maahan qof Ilaah yaqaane, waa gaal baktiyay dartiis waxaa hadiyadaha salaamaha oo waxyada dukaamada looga dhamayn doono maalinkaas. bisha February 14keeda ayaa loo aqoonsaday inay tahay maalinta jacaylka adduunka, Valentine's Day. waxaa la isku diraa salaamo, ubaxyo qurux badan iyo hadiyado qaali ah oo isdhaafsadaan lamaanayaasha isjecel iyo kuwa isqaba. haddaba maxay tahay ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa xafladaha lagu maamuso maalinta caashaqa, lamaanaha iyo jacaylka adduunka? marka uu dhagaha ku soo dhaco ereyga Valentines, waxaad markiiba dareemaysaa in magacaani macno ahaan u dhadhamayo inuu ka soo jeedo diinta Kiristaanka ama caadooyinkii hore ee Roomaanka. haddaba aan isweydiino, yuu ahaa Valentines? maxaa loo dilay? haddase loo xusaa ilaa maantay oo laga dhex arkaa magaciisa meel walba oo jacayl lagu sheego, xafladana ay ugu dhigaan bulsho kasta, khaas ahaan dhalinyarta isjecel. haddaba qarnigii 13aad dhalashadii Nabi Ciise kadib calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa jira boqor la dhihi jiray Claudius oo ka talin jiray dalka Talyaaniga. boqorkaas wuxuu amar ku siiyey dhalinyarta in aysan isguursan karin, kuwaas oo ahaa ciidan uu ku ilaashado awoodiisa maamul iyo sharafta boqortooyadiisa. balse nasiib darro, waxaa amarkii boqorka Claudius ka hor yimid oo xaqdarro ku tilmaamay ninka ay geeridiisa u dabaaldegaan maantay lamaanaha isjecel iyo guud ahaan dhalinyarta. wuxuu bilaabay inuu si qarsoodi ah u guursado dumar fara badan. haddaba markii uu soo shaabaxay guurkii qarsoodiga ahaa ee uu qarinayay Valentines, wuxuu boqorkii amray in loo geeyo xabsiga lana daldalo Valentines. sida ay sheegaan dadka taariikhda Valentine yaqaanay, waxaa ku dhacay xilliguu xabsiga ku jiray jacayl xad-dhaaf ah oo uu jeclaaday gabadh dhalinyaro ahayd oo aad u qurux badnayd, taasoo u dhalay ninkii xabsiga ka talinayay. gabadhaas oo soo booqatay waqtigii uu ku jiray xabsiga Valentine. haddaba waraaq jacayl xambaarsan oo ku saxiixna Valentines kadib markii la daldalay ayaa laga helay qolkii ku xirnaa. warqadaas oo uu ciwaan kaga dhigay ka socota Valentine-kaagii wixii maalintaas ka dambeysay, si loo xuso sanad guuradii ka soo wareegtay markii la daldalay Valentines oo ku beegan 14 bisha Febraayo 271 sano Nabi Ciise kadib, ayaa la go'aansaday in loo xuso oo loo dabaaldego maalintaas oo kale oo la isdhaafsado ubaxyo, salaamo iyo hadiyado qaali ah, ilaa heer ay gaartay inay noqoto maalin lagu cabiro lamaanaha isjecel jacaylka ay isku qabaan inta uu la eg yahay, oo haddii maalinkaas qof ayaga ka mid ah hilmaamo, loo macneeyo inuu jacayl haynin oo uu afka oo keliya ka sheeganayo. marka laga hadlayo arrimaha jacaylka, waxaa dhacda doodo aan xal loo heli karin. inta badan waxaa la isku maandaafaa maadaama aan la aqoonin sida loogu macnayn lahaa loona fahansiin lahaa dadka aan weli jacayl jiribin oo jaahilka suuqa jooga iska ah dareenka ay sheegayaan lamaanayaasha isjecel, sida farxadda, macaanka, murugada iyo xanuunka ay isla wadaagayaan, hoygana u yihiin maalin iyo habeen. haddii aysan iswaayin jacayl inuu jiro, dadka intooda badan way isku raacsan yihiin loona dhinto, inkastoo la isku khilaafsan yahay inuu jacayl weligiis jiri doono oo labada qof ee jacaylka isku guursaday ay weligood ahaan doonaan laba qof oo isjecel. in geeri iyo qadar Rabbi kala geeyaan maahane, taasoo jirta. haddana lamaanayaasha dunida isku jecel ayaa aaminsan in jacayl aysan beri fujin, biyana kaa dhaqin. sidoo kale in waqtiga isbeddelka qofku isla bedeli karo, sida dabeecad ahaan, fikir ahaan iyo weliba horumar ahaanba. aan u soo laabano muhiimadda mawduuceennee. haddaba maalinta jacaylka adduunka ma loo dabaaldegi karaa oo ma tahay maalin mutaysatay in loo dabaaldego? haddii aad aqligaaga si sax ah ula kaashatid, waa maya, dhowr sababood dartood. 1. horta haddii aan nahay ummad islaam ah, waa inaan ka soo horjeynsanaa tilaabo walba oo ay qaadaan dadka Kiristaanka iyo Yuhuudda ah, oo waa inaanan qiimayn waxyaabaha ay qiimeeyeen iyo waxay buunbuuniyaan, maadaama aan nahay dad diin ahaan iyo dhaqan ahaanba kala duwan. 2. nin gaal ah maalinkii uu baktiyey in lagu farxo oo hadiyado la isdhaafsado, jacaylna la isku muujiyo, oo lamaane kasta ay si gooni ah u qadariyaan, taasoo macnaheedu yahay in ninkii Valentines ee baktiyey la xusayo oo laga xun yahay daldalkiisii. taasi diinteenna wanaagsan ee Islaamka ma ogola, oo waa mamnuuc inaad qof gaala xustid ood u ooydid ama u qosashid. 3. ummadda Islaamka waxay leeyihiin maalmo ay si gooni ah u xusaan una qadariyaan, sida Ciid Rabadaan, Ciidul Adxa waa xajka kadib, iyo isbuuc kasta maalinka Jimcaha oo shaqada iyo iskooladana siina laga qaato. marka inaad samaysid
maalin kale oo xaqiiq ahaan reer galbeed nooga timid kaaga darane aan sal iyo raad meel diinta uga tala la arag lana aqoon waa bidco kaana mamnuuc ah haddii aad tahay qof islaam ah. Rasuulkii Alle nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isagoo waxyaabahaas ka hadlaya waa isagii lahaa bidco kasta waa baadi kastana naarta ayaa lagu gelayaa. 4. Valentine waxaa loo dilay inuu ka soo horjeeshay sharciga waddankiisa. Waxa uu sharcigaas ku dunshayna waxaa la sheegaa inuu yahay jacayl oo u qaaday dumar fara badan oo guursaday. Dadka isjecel waxay ku doodaan maantay in qof walba hal qalbi leeyahay. Marka sidee ayay suuragal ku tahay in Valentine oo lagu tilmaamo inuu ahaa aabihii jacaylka inuu jeclaado waxaasoo dumar ah weliba uu wada guursado? Soo lama dhihi karo Valentine naftiisa ayaaba ahaa cadowgii jacaylka. Waa haddii dhab loo aaminsan yahay inuusan jirin qof laba qalbi leh. Su'aalahaas waxay khuseeyaan oo aan ku baraarujinayaa dadka ku guda jira una dooda jacaylku inuu yahay wax ka dhaxeeya laba qof oo kaliya. Haddaba walaalaha muslimiinta ah oo isdhowra inta Ilaahay idinku waajibiyay ka soo baxa marka hore. Intaas ayaaba hawl iyo dhib iskugu aadee oo aan hubaa inay maanta inta badan khaas ahaan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha iskugu jirtaay inay ku adag tahay inay ka soo wada baxaan waajibaadka Ilaahay saaray. Mana ahan waana maangaabnimo iyo axmaqnimo tii ugu dambeysay inaad ku gabgabtaan waxaan la idin tirsan iyo waxaan ajir iyo xasanaad midna toona idinkugu jirin inay caro iyo dambi iyo aakhiro xumo idinka soo raacda maahane. Ugu dambeyn la jeclow noolaha iyo khaas ahaan muslimiinta wanaagga adduun iyo jannada aakhiro oo aad naftaada la jeceshahay kagana dig xumaanta iyo cadaabta Rabbi weynankiisa. soo xasuuso siraadkii aakhiro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.